Soomaali waa mid in badan aan raadin ugu jiray inaan anigu helo calan Soomaaliyeed oo karaamiye sharaf ku noolaado wadanka ku dhalatay halkan ku qabtay wax ku baratay aan arkin dawlad Soomaaliyeed nidaam kala dambeeyay calan sharaf iyo qiimo la ka dulbabanay midkoodna maanta maadaama la kala tagay dadkuna ay saddex qaybood u noqdeen aan qayb iyagu dawladnimadii Soomaaliyeed iyo nidaamkii dhisnaa joogtay laakiin rafaadku ku xoog batay inuu hagaajiyaan jeclaan wax meel wax ka bilaabaan aan jirin iyo qayb iyagu dawladii naga dumiyeen waqti xaadirkan u xusul duubaya intay gobolanagu ootaan inay shilimo ay noogu hor joogsadaan caadifad nagu beeraan iyo kooxan anigu kamid ahay kiisi ku dhasheen qaarkoodna wax rabaan qaarkoodna aanay waxba rajaha wareeray jiray qodbadii maalinta aan jeediyay dadkaygu waxay u adeegsadeen ka soo jeeda gobolada waqooyi si cadifadaysan taasi oo ay aanay fiidiyowga isagoo dhammaystiran soo qaadanin laakiin intii xanafta lahayd oo kaliya ay ka soo qoosteen hanjabaado badan baa jiray oo ahaa Naciima Hargeysa cagaha ma soo dhigi karto jeel baanu geynaynaa waan googoyn doonaa iyo waxyaabo halmaala taa waxaan kaga falcelin lahaa anigu Hargeysa xilligan u baahdo waa hoygeygii oo nimanaya cid waxay oran kartaana ma jirto haddii bas ay dhacdo in la xidho anigu filanahayninba dajeelka ari looma sameeyay dad baa loo sameeyay maalin baan ka soo bixi doonaa taasina ma noqon doonto mid anigu afkaarta iyo aragtida aan xambaarsanahay iga bedeli doonto anigu dadka laba midahi gabiya Soomaaliyeed baanay qalmaar Soomaaliyeed baanahay ummadana waan u dhaxeeyaa cid gaar oo aan anigu u xidhanahay oo aan meel ugu jiraa ma jirto meel kasta oo ay Soomaali degtana aniga qasri dahabi ay iga dhisan wana gurigeyga tan iyo fikirkay ku wajahan aragtideeda midnimo Soomaaliyeed aan aaminsanahay sidaan diinta Islaamka u aaminsanahay inay waajib ugu tahay ayay anu aaminsanahay midnimada Soomaaliduna aniga inay waajib tahay